السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرحمن مختار. runtii meeshaan waxaa isoo gelisay dan guud. runtii qof bini'aadamka haddii oo dhibaataysan yahay waa qof walaalka dhibaato lagu fiirsado. waxaan u baahanahay inaad videogan ii share garaysiin oo dowladda ii gaarsiisiin madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha gobolka cusub. waxaan ka codsanaynaa inuu arrinteena naga fargeliyo. aniga runtii xaaskii ruqi waa isjecelnahay. runtii dad jecel isu guursadanahay. runtii waan isku kalsoonnahay. runtii haddana waa qof dad isjecel oo dhibaataysanna waa nahay. qof walba oo wax jecel yahay dhibkiisa qofkaasaa wax dareemi karo. runtii aniga qof waxaan jeclaada ahay. runtii gabartan gabar Soomaaliyeed waaye. waa haddana ilaahay xaaskayga ka dhigay. haddana xaaskayga waaye. runtii waanu ku kalsoonahay. waana igu kalsoon tahay. waana igu qanacsan tahay. marka waxaan u baahannahay hadda inaan aniga xorriyadeena si aan ku heli lahayn inaan aragno. runtii meeshaan shalay dowladnimo aan ula keenay. maanta wax daryaalna meeshaan kuma haasano. xabsiyan nolosheena kusoo koobmatay. runtii waxaan u baahannahay dad oo shaqaysan kara inaan nahay. waa shaqaysan karaa alxamdulilah. weligay waaba shaqaysan jiray. haddana meeshaan waxay igu soo xareysa waxay tahay dhib walba oo dhacay. hadda kama hadlaayo waxaas aniga. hadda waxaan ka hadlayaa dhibka i haasto waxay tahay sida aniga xorriye aan ku heli lahaynay. waa dad namaano aan nahay oo isku kalsoon oo isjecel alxamdulilah. runtii calafka horta qofka bini'aadamka calafka asiga ma hayo. calafkana anigana ma hayo alxamdulilah. runtii ilaahay mahad iskale. ilaahayna calafkeyga ka dhigay gabartan walaasheeda ruqayya cabdullaahi. alxamdulilah waa isku kalsoonnahay. waan isjecelnahay. shalay go-aankii aan ku taagnayna waa jecelkeena. runtii haddana waa ku taagannahay. waan isku faraxsannahay. waxaan u baahannahay aniga dhibaatadan oo na haasato inaan nagala saaro. runtii waxaan u baahannahay dowladda inay arrinteena ka hadasho. guddoomiyaha gobolka cusub cumar finish waxaan ka codsanaynaa inuu waxa noo qabto. shalay dowladnimadii shalay meeshaan go-aankii noola keenay inaa haddana lacagtii nagala dhiibo. waan u baahannahay. waa dad oo iska dhibaataysanaa nahay oo haddana si jecel alxamdulilah. ilaah mahadiisa waayo. qof walba oo bilaadan ah jecel wuu mari doonaa. waanu arki doonaa qof walba dhibaatadaas mafahanti. aniga runtii waa igu dhacday dhibaatadan. hadda waxaan u baahanahay aniga sidii aniga xaaskayga oo biilo lahaay aan ugu shaqaysan lahaay aan u baahanahay. lacag ilaa $30,000 gaaraysaa lagu leeyahay dollarka Mareykanka ah. marka aniga lacagtaas qof dhiibi karna ma ihi. haddan kaas hidan qof oo bixi kara haddana ma ihi oo nolosheena waa cabsanaynaa. haddana waxaan u baahannahay Soomaali weyn meel kastay joogaan inay videogan ii share gareeyaan. qof walba wax qabad leh wax ii qaban karo oo arrintan dowladda igala hadli karo oo dowladda oo arrintan ka bandhigi karo inuu u bandhigo hadalkeena. runtii dad isjecelna waa nahay. waa noo jeediin alxamdulilah. haddana wiila ilaahay nagu soo biiriyey. waa kaas wiilkeena axmed doole yaraa allaha magaciisa axmed doole. alxamdulilah ilaahay awlaadaas iga siiyey. dad maantana oo meel u qaltay karana ma lihi. waa haddana dad maasha allah ilaahay awlaad dhexdeena soo geliyaan nahay. waxaan u baahannahay sidii aniga xorriye aan ku heli lahayn. caalamka waxaan ka codsanaynaa inay arrinteena inuu lacagtaana dhibiyo anka meeshaan dowladnimada lagu soo geliyo. haddana meeshaan xorriyad mutaagan xabsi camal ku hadan. dowladda waxaa ka codsanaynaa inay lacagtaana dhibshada dhigis waana keen ilaa una xariisto. guddoomiyaha lagu bedelo waxaa ka rabnaa inuu lacagtaana dhibiyo. aniga ninkii nolosha kalsoonaan oo isjecelna maxaan dad kala tagi karna ogaadana. wallaahi taas waa haddii aan runta ka hadlno waxay tahay shalay aniga meeshaan waxaa noola keenay dowladnimo.
runtii saas tahay ilaa u naxariista wuxuu jariisoo garab noogu siinayay hadda nin garabkeena waa ka baxay ilaa u naxariisto garabka ka wada baxay janna allaha ka waraabiyo hadda aniga waxaan ka hadlaynaa maxay tahay runtii dad isjeclo dhibaataysanna waa nahay oo haddana awlaad ku xiriirto awlaadaan ugu xiriiro wiilaa ilaahay nagu soo kordhiyey oo boqolow ah caalamka waxaan ka codsanaynaa inay garabna siiyaan oo arrinteena hataa haddii dalkan la geey karaa hataa inay la geeyaan waxaan u baahannahay runtii dad cabsanayana waa nahay meeshaan haddana cabsin waa ugu sii jirnaa lacagna ilaa $30,000 oo gaarisaa la iska rabaa waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysiin muhiimadeena waxay tahay inaa ii sheer garaysiin haddii hataa waxaa ii qaban karin waxay tahay inaa ii sheer garaysid adina ilaahay waxawaaye qofka bilaadan oo dhibaataysana adina aa u sheer garaynaysaa wax dhibaata kaama soo gaarayo walaalkayga walaashayda ii sheer garaya videoga ninka waraali ah haddana waxaan u baahannahay madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa garabna siisid oo meeshaan xorriye la-aan inagu haasaa hotelkan waxaan u baahannahay inaa hotelkan oo lacagta nagala bixiyo oo lacagtooda la siiyo anigana sidii xorriye aan ku kala lehna inaa helno aan u baahannahay shalay dowladnimo iyo magac dowladeed aan kusoo galnay meeshaan aniga socona ma soo gelin shalay dowladdiina keentay waxaan ka codsanaynaa inay garab siiyaan oo lacagta ilaa $60,000 gaarayso inay taasaan ka codsanaynaa waxaan u baahanahay walaalahayga iyo walaashayda waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysiin videogan runtii waa noo jeediin waxawaaye hadda ebil 2 ahaanay haddana ilaahay 3 oo naga dhigay waxaan u baahannahay marka inaa wax noo qabataan oo noo sii sheer garaysaan ninka waraali ah walaalahayga qof walba oo bilaadan ay dhibaato way ku dhacdaa anigana ilaah anaga saaro inta musana dhibaato ku jirta ilaah ka saaro gudoomiyaha gobolka cusub waxaan fariintaan u diraynaa gudoomiyaha gobolka cusub waxaan ka codsanaynaa inuu booskii injineeriso allah u naxariistay inuu noo buuxiyo oo lacagtan hotelkan leeyahay inuu naga bixiyo runtii waxay tahay shalay aniga meeshaan dowladnimaan noola keenay shalay dowladnimadii noola keenay aan u baahannahay maanta inaa dowladnimadaas wax noogula qabto oo shalay lacagtan hotelka dowladnimo loo bixinayay maantana waxaan u baahannahay inaan dowladnimo loo bixiyo hotelkan lacagtiisa oo anigana sida ku helno waxaan u baahannahay inaan videogan noo sheer garaysaan noo sheer gareeya video muhiimadan waxay tahay inaan noo sheer garaysaan caalamkan oo la wadaagtaan dhibaatadana haasato dadnamaanayaalna waa nahay oo haddana isku kalsoon oo isjecel haddana awlaad ilaahay kusoo biiriyey waxaan u baahannahay inaa muhiimada waxay tahay inaan noo sheer garaysaan oo dowladda naga gaarsiisaan madaxweyne farmaajo xasan khayre waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka kulli inaana oo naga gaarsiisiin u baahannahay ninka walaali ah aniga waxaan nagu leeyahay lacag runtii sano hotelka waaba nagala jartay hadda muhiimadda waxay taagan tahay inaa sida xori aan ku heli lahayn inaa caalamka eedaha kulli meel kasta joogaan naga gaarsiiya walaali ah qof walba bilaadan ah hadduu wax noo qaban karin wuxuu wax nooga qaban karaa videogaas inuu noo sheer gareeyo qof walba bilaadan hadduu wax noo qaban karin waxaan u baahannahay video noo sheer garaysaa qof walba oo maanta oo jecel soo maray mise jecel oo ka saaxiib waa dareemi karaa oo jecelku wuxuu yahay runtii aniga dad isjeclaan nahay
runtii hadda waa loo jeedin dhulkeena lagu oonayo marka cunug yar hadduu kugu soo kordho oo haddana wax maayo ma qasaayo marka meeshaan aniga waxaad usoo gelisay dan ma aniga haddii maanta oo dhan xuriya aan nahay haddii ahaa lahaynay runtii wuu soo gali lahayn laakiin intii noo sheergaraysay oo ku waasantihiin waxaan u baahannahay dowladda inaa naga gaarsiisiin mise hay-adaha adduunka inaa naga gaarsiisiin fiidiyoon hay-adaha caalamka inaa naga gaarsiisiin aqoon insaanka naga gaarsiiya dowladdeena waxaan ku codsanaynaa inay lacagtaan ay naga bixiyaan aniga waxaan nahay dad oo isjeclo oo lamaanayaal ah oo runtii haddana xuriye ah haasanin muhiimadda waxay tahay qofka inuu xuriye oo helo haddana cunugaa lagu oonayo walaalahayga ininka waraale ah ii sheer gareeya fideoan caalamkana waxaan rabaa inaa ii gaarsiisiin dowladda federaalka Soomaaliya inaa ii gaarsiisiin madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya aniga waraale ah gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya fariintan waxaa isu gelinaa meesha waxay tahay qof oo awlaadku xiriir nagu ahay oo dumar ku xiriirto maanta qof shaqaysan karana ma ihi muhiimaddeeda waxay tahay inaa ii sheer garaysaan oo dowladda ii gaarsiisaan waxaan u baahanahay madaxweyne farmaajo waxaan u baahanahay inaana caawiso meeshaan oo ku dhibaataysannahay shalay meeshaan wacad dowladeeda noola keenay haddana dowladnimadii noola keenay shalay ma haasano madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa meeshaan wax nooga qabatid dowladnimo waxaan noogu qabatid hotelkan lacagteeda naga bixisid sidaa xuriye nuu sii leedahay inaa na siisid gudoomiyaha gobolka cusub waxaan ka codsanaynaa unafanish gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa hotelkan lacagtiisa shalay ilaa naxariista madaxweyne jiriisa jiray adina waxaan kaa rabnaa sidoo kale inaa naga dhiibtid lacagta hotelkan noola leeyahay shalay dowladnimaa noola keenay haddana dowladnimada shalay noola keenay walaalayaal ii sheer gareeya ninka waraale ah ii sheer gareeya waxaan rabaa inay la wadaagtaan caalamka oo la wadaaga fiidiyooda ninka waraale ah 4 mitir aan ku jiraa runtii waxay tahay danta i haysto waxaa ka mid tahay inaa 4 mitir aan ku jiro oo meel aan lugteeda u dhaqaaji karin meelna lugteeda ma geeyi karin wallaahi bilaahi talaahi runta waxay tahay nin walba oo runtaan u arkayo inaha ka dawoolan sidii wax noo qaban lahay inuu raadiyo qof walkiina ahay fideoan ii sheer gareeya ii gaarsiiya madaxweyne farmaajo gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya unafanish ii gaarsiiya video aniga waxaa hotelkan ku dhibaataysanahay aan ku xiranahay qof walba oo wax jecel waa dareemi karaa dhibka i haysto qof walba wax jeclaa doon waa dareemi karaa dhibka i haysto ani danta ingiliisa meeshaan tahay aniga oo tan ugu horeyso aniga qoftaan walaashayda ah ilaahay calafkeyga ka dhigay ma ahan in aan liigu dhawaateeyo runtii shalayna ilaahay garab iyaayay maantana insha Allah ilaahay garab iigu siinayo aniga wax qalad ah ma sameynin nin walba oo calafkiisa aan cid ka hor istaagi karta ma lahan ani runtii ilaahay calafkeyga ka dhigay gabartaan walaashayda ah weli ani waxaan aqoonsanahay qofka bilaadanka inuu bilaadanimada inuu wax ka saayo
waxaan u baahanahay videogan ii sheer gareeya aninkoo raali ah. ilaadimidu waxay ku jirtaa inaa adduunkan uu yahay aakhir nin walbo. marka waxaan rabaa si muslimi igu sheer gareeya ee ii gaarsiiya madaxweyne farmaajo. runta waxay tahay qof oo califkay ilaahay ka dhigay ma ahan inay igu caasaan, inay igu dhibaateysaan. maanta aniga wax alla xaggiisa ku qoran cid hor istaagi kartaa ma jirin. anina ilaahay xaggiisa wax walba igu qornaayeen. calafkaygana ilaahay ayaa ka dhigay, ma ahan inaa igu caasaan. ani waxaan rabaa oo maantan iga baahanahay sidaa garab igu sii laheedeen haddii wax ay qaban kara ii sheeg wadaag madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub. waxaan rabaa inaa ii gaarsiisiin video ninkoo raali ah. lacag ilaa $30,000 gaaraysaa liigu leeyahay. runtii man ka bixi karo hotelkan. ebel horaa waa cabsanayay. haddana waxay tahay lacag liigu sii leeyahay inaa caalamka ila wadaagtaan videogan eedaha meel kasta ii gaarsiiya aqoona insaanka meel kasta sidii wax liigu qabo lahaayay. taas igu dadaal inkoo raali ah. qof walaalkiina ahay igu dadaala sidii ay ugu gaarsii leedahay eedaha adduunka joogaan meel kastay joogaan caalamka. madaxweyne farmaajo xasan khayre waxaan u baahanahay inay ii gaarsiisaan gudoomiyaha gobolka cusub cumar finish intaba ii gaarsiiya ninkoo raali ah. haddana ani waxaan u baahanahay muhiimadeeda waxay tahay sidaan xoriyaan ku heli lahay awlaadeena u yeelan lahay. haddana waxaan rabaa inaan videogan aan ka baxo. runtii waa ku mahadsantii intaa ii sheer gareysay. si walaalnimo igu sheer gareeya iyo la wadaaga adduunka caalamka meel kasta joogaan soomaali. waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan videogan ninkoo raali ah. farmaajo waxaan ka codsanayaa inay caawiso. waxaan dhibaateysanaa waxay tahay shalay meeshii dowladda i geysatay oo u geysay maanta ku dhibaateysanahay. xorriye la-aan aan ku ahay 4 mitir aan ku xiranahay. madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanayaa inay waxa ii qabato dowladnimo soomaalinimo muslimnimo intaba waxay ugu qabato madaxweyne farmaajo. gudoomiyaha gobolka cusub cumar finish waxaan ka codsanayaa gudoomiye inaa waxa iga qabato. hotelkan lacagta liigu leeyahay shan waa liiga bixi jiray. waxaan ka codsanayaa maanta inaa iga bixiso. qof walba oo calaf leh waa dareemi karaa. qof walba oo calaf leh waa dareemi karaa dhibkii haysto. intuu dunida ku nool yahay dhib oo arkaa. waxaan u baahanahay inay caawisaan oo ii sheer gareysaan video. ii sheer gareeya madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya gudoomiyaha gobolka cusubna ii gaarsiiya. saarac sarqaarna ii gaarsiiya videogan ninkoo raali ah. waa ii jeedaa inaan dhibaataysanahay. qof walba oo waxgarad leh waxaan ahay awlaad ah. waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video inta ii sheer gare kartaa ii sheer gare
si walaalna igu sheer garay anigoo mahadsan video aan ila wadaaga caalamka waa ku mahadsantihiin video aan ii sheer garay waa mahadsantihiin dhigani dowladda waxaa ku codsanayaan inay meeshaan bisha laga meeshaan keeneen gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub waxaa ku codsanayaan inay meeshaan baxsho lacagta hoteelkana oo ninka dhiibo sharaaniga meeshaan waxaa laga keenay balan waxaan sameynaa waxaana manala qabanin waxaa ka codsanaynaa xorriyadda inaan aniga meeshaan iskaga baxno sida muhiimadda waxay tahay inaa sida xorriyadeena aan ku heli lahayn waxaan u baahannahay inaan noo share gareysaan videogan inka walaalahayga hadda aniga video kuma dheeraa karo runtii share garee oo mahadsan aniga mar labaad mar saddexaad waxaan usoo galaya waxay tahay danta ahaaso awgeeda usoo galayaa marka walaalahayga waxaa muhiimadda ee taalo waxay tahay waxaase u dhaceen lama dhaho wax walba xagga ilaahay ku qoran yihiin waxaan u baahanahay in ay caawisaan oo wax ii qabataan oo madaxweyne farmaajo ii gaarsiisaan inuu lacagtaa naga dhiibo ra-iisul wasaare xasan khayre inuu lacagtaa naga dhiibo igu gaarsiiya gudoomiyaha gobolka cusub inuu finish waxaan ka codsanaynaa gudoomiye waxaan ka codsanaynaa garabna siisid oo lacagtaan naga bixisid oo hotelkan uu leeyahay $30,000 ah ii sheer garee walaalahayga ii sheer garee anigoo mahadsan oo raaliya igu sheer garee videoan caalamka wala wadaaga videoan dad oo namaanayaal isjeclaanahay oo haddana dhibaataysan waa isku kalsoonnahay runtii waxay tahay haddana dad walaada haasanaanahay ilaahay wiil oo boqoloo na siiyey dad oo maanta oo meel ku kala tagi karna ma lihi dad isxumay karna ma lihi dad walaalaa nahay oo haddana si kale oo si Soomaali isku jeclaadeen si muslimnimo ah ma fahanti haddana shalay aniga go-aanka anigoo dhaxni waa isjecelnahay waadne isku dhimo doonaa wax walba oo dhaco iska maarno dad isjeclaanahay ininkan waxaan rabnaa inaa nagu caawisaan sidii Soomaalinimo iyo bilaadanimo iyo muslimnimo intii adduunka la jooga walaal leeyahay intii oo adduunka joogta qof qaba kartaa aakhir nin walba tiisa haasato ininkan waa mahadsantihiin walaalahayga ii sheer gareeyaan videoan aadaa u mahadsantihiin ayadaha adduunka waxaan ka codsanaynaa inayna caawiyaan oo xorriya ayna siiyaan sida xorriya aan ku heli lahaanay xorriya ma haasano 4 mitir oo ku odannahay runtii 50,000 lacagoona waan nagu leeyahay dad hore waa cabsanaayana waa nahay waa dad cabsanaayana waa nahay banaankan waa xorriya aan ku barkarno runtii lacagna waa nagu leeyahay videoan ii sheer gareeya walaalahayga ii sheer gareeya videoan inkoo mahadsan adduunka meel kasta joogtaan ii sheer gareeya dal iyo dibidba videoan ila wadaaga caalamka adduunka arrinteena u bandhiga qof walaalihiinaa nahay videoan caalamka u bandhiga sidii aniga waxaa noola qaban lahaay oo noola caabi lahaay oo garab nooga sii lahaay intaas haddii nagu samaystaaba ku mahadsantaha walaalkayga sidaasaaba waxa noogu qabatay adoo mahadsan walaalkayga iyo walaasheeda adoo mahadsan
sidaas aba wax noogu qabatay video muhiimadda waxay tahay adoo dad noo gaarsiisid oo dadkii wax noo tari lahay oo noo caawi lahay videoan noo sheer gareeya muhiimadeena waa taas sida dad oo na caawiyo Soomaali waa la helayaa adduunka meel kastay joogaan video noo sheer gareeya dal iyo dibadba meesha aad joogtaan igu sheer gareeya insha Allah ilaahayna khayrka ilaahay noo waafajiyo nin walba oo khayr lehna ilaahay khayrkiisa Allah u saalo idinkana waa ku mahadsantihiin oo video noo sheer gareysaan anigoo runtada idiin sheegay waxay tahay qofka sida oo ilaahay calafkiisa ku sahlo waa loo caawiyaa ma loo diido runta waxay tahay inaa igu caawisaan qoftan walaasheena ah runtii ilaahay calafkeyga ka dhigay runtii waxaan kulli shay calaf waaye haddana calafkeyga oo ilaahay ka dhigo haddana ilaahay awlaad iga siiyey meelaa ku xumeeyay ma taagnay meelaa ugu tagay ma taagnay haddana waxaa rabaa inaa igu caawisaan oo garab igu siisaan oo caalamka oo la wadaagtaan dhibaatadeena caalamka inaa oo la wadaagtaan videogeena usoo bandhigtaan sidaan dhibaataysana waa noo jeedaan sida xuri la-aan sidii markii ilaa hadirtaan aniga meelaan ku xiranahay muhiimadda waxay tahay inaan fiidigaan noo sheer gareysaan oo caalamka oo la wadaagtaan adiga inagoo maasan noo sheer garee dowladda waxaa ku codsanaynaa aniga lacagtaan naga dhiibshan meeshaanaydi dowladnimaana u keenay haddana waxaa naga haystaa lacagta aniga meeshaan shan aniga liiska imaanin dowladana keentay dowladana lacagtaan naga dhiibto gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ku codsanaynaa inuu lacagtaan naga dhiibo idinkoo maasan idinkaan noo gaarsiiyo mahadsantihiin walaalaheega meesha ugu bixinaa videoan intii noo sheer gareysay walaalaheegana ah waa ku mahadsantihiin intii wax noo qabatayna waa ku mahadsan yihiin nin walba oo qabashadooda waxay tahay adoo ii sheer gareysay runtii ila wadaagtay dowladda iyo runtii caalamka taasaaba waxa noogu qabatay aan ku mahadsantahay adina walaalkeyga oo waqti noogu bixisay aada ugu mahadsantihiin muhiimadda waxay tahay inaan noo sheeg gareysaan videoan oo caalamka adduunka meel walba bandhigtaan dhibaatadana haysato nin walba bilaadan dhibaato way qabsataa waan ka baxaa insha Allah khayraan idin rajeynaynaa ku mahadsantihiin walaalaheega sidaasna ugu bixinaa videoan waa mahadsan